bismillahi raxmaan raxiim. waxaa la sheegaa luuqadda inay tahay furaha nolosha oo qofka luuqad hadduu yaqaano wax celinaya aysan jirin. xitaa dadka qaar waxa ay sheegaan luuqadda shiinaha hadday tan kaa gashay inaad baratid si aad oga ammaan heshid ugu yaraan. dadka qaar sidaasun bay sheegaan, dabcan waana xikmad ku jirto meesha. waxaan weydiinaynaa sheekh cabdullah alxamaraawi marka hore, bal luuqad in la barto horta maxay tahay? luqad in la barto waa maaragtay muhiim, maaragtay waana markaasi luqadaas aa baratay hadba waxa ay maaragtay ka hadlayso, haddii diini ka hadlayso waa sii muhiimsan tahay. haddii ay nolosha ku maaragtay ku anfacayso ama waddanka ah ku nooshaana ayadana aad bay u wanaagsan tahay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, luuqad in la barto marka la baranayo ma adag tahay horta? luqad walba ay ahaato waxay ku xiran tahay hadba sidaa xoogga u saartid, mana adka mana fududa. laakiin haddii aad waqti gelisid waa ay fududaanaysaa oo waa baranaysaa. haddaadan waqti gelinina waxay noqonaysaa markaasi way kugu adkaanaysaa. maxaa ka mid a marka qofka isagoo laakiin waqti geliya ku adkaan kartaa? dad badan oo waxaa jira isaga tegay luuqado. okay, maxaa looga baahan yahay qofka inuu xoogga saaro markuu rabo luuqad ku cusub inuu barto? luqad ku cusub markuu rabo inuu barto waa inuu xoogga saaro waxa la yihahdo almahaaraat alarbaca oo luqadda carabiga lagu yihahdo. alistimaac oo dhegeysiga ah, ataxadus oo ku hadalki ah, alqiraa'a oo akrinta ah, iyo alkitaaba oo qoraalka ah. englishna waxay noqonaysaa waa four skills: listening, reading, writing and speaking. yaa muhiimsan in grammarka iyo skillska inuu ku dadaalo qofka markuu luuqad baranayo? waxaa muhiimsan skillska hadda aan soo sheegnay oo xirfadaha afarta ah inuu ku dadaalo. maxaa yeelay waxaa lagu tusaaleeyaa ilmaha yarka ah markuu dhasho lama baro grammar ama naxwo lama baro, laakiin waxa waaye sida uu u dhageysanayo hadalka hooyadiis oo u maqlaayo ayuu markii dambe wuxuu gaaraa, waxaa la arkaa ilmihii oo ku hadlaayo luqadii.